qoladaasi marka markhaatiba iga rabaan inaan arrinka markhaati kaco waxay igu yidhaahdeen gabadh ismahaan la yidhaahdo oo cilaaj ku haysata 150 meelahaas ayaanu u tagnay waxay noo sheegtay in maxamed sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed cumar dirir ay labadaba fatwo ka haysato noocan ay u shaqaynaysaa inuu sax yahay oo waliba maxamed sheekh ismaaciil dawooyinka iyadoo ay u dalabto iyadoo u keento haddaad rabtaan orda oo maxamed sheekh ismaaciil u taga oo soo weydiiye waan weydiiyo naagtu maxay ku shaqaysataa waxay tidhi junuud muslima ila shaqaysaa junuud muslima ayaan wada shaqaysanaa waxay ii sheegeen marka kuwii u tagay waxay tidhi adiga sixir baa adiga iyo ninkaagii lagu kala kaxeeyey sixir lagu farayaraystay ninkaagii sow kuma maqna dibadda haa telefoonka mayuu kaa qabtaa maya igama qabto haa waa laydin kala eriyey marka waxaan rabaa inaan adigana sixirkii kaa furo isagana aan sixirkii ka furo adiga $500 baad keenaysaa hawshaad way sahlan tahay isagana nambarka telefoonkiisa isii halkaa uu jooga baan ku daweynayaa laakiin hawshiisu way culus tahay $1500 baad keenaysaa waa maantadan isaga hawshiisu way culus tahay $1500 ayaad keenaysaa way ii yimaadeen waxayna lacagtii badh bay naga haysaa lacagtii badh bay naga haysaa maxaan yeelaa marka waxaan ku idhi wax allaaliya wax gabadha aan ka aqaano iyo dawo ay aniga ii keento iyo fatwo ay ii weydiisay ma jirto in shaytaan la adeegsadana shareecadu ma ogola ee arrinkaa ka taxadara arrinkaasi inta faraha badan dhib buu u keenaa makhluuqa waxaynu ka warramaynay dhibta isha iyo sixirka